waa sheeko jacayl waana qiso xanuun badan waxay ku saabsan tahay wiil iyo gabar waxayna la magac baxday keebaa khaldan labadooda. habeenada ka mid ah ayay gabadha hurdo ka imaan weysay way soo kacday waxayna bilowday inay ka fakarto murugta iyo dhibaatada xagga jacaylka ah ee ay dareemaysay maalmihii la soo dhaafay. wiilkii ay isjeclaayeen ayaa ka tegay. sidii ay u wada socdeen ayuu mar qura u soo diray fariin qoraaleed ama message uu ku leeyahay waan ka xumahay laakiin xiriirkii naga dhexeeyay halkan ayuu ku egyahay. iyadu ma aysan garanaynin wax ay ugu jawaabto waayo dambi ay ka gashay maba jirin muddo 3 sannadood ahna way wada socdeen. wax kalena uma uusan sheegin oo aan ka ahayn inuu yiri waan kala harnay. inkastoo aysan ogeyn dambi ay ka gashay haddana waxay isaga malaysay oo ay isku qancisay kolley inay wax uun qalad ah ku samaysay oo uu qoonsaday. muddo yar kadib habeenada ka mid ah ayay iska soo labisatay wayna ka soo baxday gurigeeda. waxay soo aaday meel beer lagu nasto ah oo aan xaafadeeda ka fogeyn. iyadoo beertii dhex socota oo ka fakaraysa sidii ay nolosheeda isbeddel ugu samayn lahayd una qancin lahayd ayay mar qura si kadis ah ku aragtay wiilkii ay jeclayd oo isagana weli jecel. dhinaciisa ayay u soo dhaqaaqday markaas ayay ku tiri maxaad halkan ka qabanaysaa? wiilkii ayaa ugu jawaabay hay halkan ayaan iska fadhiyey. gabadhii ayaa tiri oo saacadaana oo ah 9:34 habeenimo soo xilli dambe ma aha? wiilkii ayaa yidhi waan ogahay saacadda waan la socdaa wakhtiga ay tahay. fiiri abbaayo iga raali noqo doqon ayaan ahaa ma ahayn inaan jaro xiriirkii aan kula lahaa. halkan waa meeshii markii ugu horreysay jacaylkeena aan isugu sheeganay. taas ayaan ka fakarayay hadda sababtoo ah ma seexan karo haddii aan guriga tago. gabadhii ayaa tiri marka waa yahay maxaad xiriirkeenna u soo afjartay? wiilkii ayaa yidhi gabar kale darteed ayaan sidaas u sameeyey. runtii waana ku khaldanaa tallaabadaas waana ka qoomamaynayaa hadda weli adiga ayaan ku jeclahay aniga. intaas markii uu yidhi wiilkii wadnaheeda ayaa aad u garaacmay. waxay rabtay inay tiraahdo anigaba waan ku jeclahay laakiin ma aysan dhihin sidaas. waxay ugu jawaabtay laakiin aniga kuma jecli adiga waxaad sabab u noqotay inaan muddo 2 isbuuc ah ooyo hurdo ma seexan karin waayo waan ku jeclaa balse hadda wax kasta way dhammaadeen ma ku jecli xilligan waana ku iloobay. wiilkii ayaa yidhi waan ku fahmay laakiin fadlan sidaas ha samaynin fursad kale isii weligay waan ku jeclaan doonaa weligay mana kaa fogaan doono. gabadhii way iska dhaqaaqday iyadoo u muuqata in codsigiisa ay ku gacan sayrtay. hase ahaatee qofkii markaas wejigeeda fiiriyo wuxuu arki karay inay ilin fara badan indhaheeda ka daadanaysay. 5 maalmood kadib waxay ogaatay inaysan sii dulqaadan karin. aad ayay daciif u noqotay. waxay doonaysay inay mar uun wejigiisa mar kale aragto oo ay la kulanto. taleefankeedii ayay soo qabsatay nambarkiisii ayayna wacday. wiilkii ayaa ka qabtay oo yidhi helow. gabadhii oo aan hadal kale iyo salaamba gelin ayaa tiri ma ogtahay habeenkii aan beerta lagu nasto joognay waxaan ku dhahay kuma jecli laakiin taas beentay ayay ahayd. aad ayaan kuu jeclahay waana kuu xiisay in badan fadlan ma kula kulmi karaa? runtii aad ayaan kuugu xiisay aniga. wiilkii oo aad moodday in ay farxad haraysay ayaa yidhi waa hubaal waan kulmi karnaa aniga xataa adiga ayaan kaa fakarayay 5 maalmood ee la soo dhaafay. aad ayaan kuugu xiisay waana ku jeclahay. markaas kadib gabadhii dareenkeedii farxadeed ayaa dib u soo laabtay.
hadalkiisii ay taleefanka ka maqashay iyo qosolkiisii ayay farxad weyn ku heshay, waayo aad iyo aad ayay u jeclayd. waxay diyaar u ahayd inay wax kasta uga tagto si ay isaga nolosha ula qaybsato. wax kasta isaga ayaa u ahaa. weli taleefankii lama jarin. gabadhi ayaa tiri, waayahay aan ku kulanno beer ku taala magaalada dhinaceeda kale. halkaas aad ayay u qurux badan tahay. waxaana rabaa in habeenkan caawa ah aan xasuusnaado nolosheeda inta ka dhiman. wiilkii ayaa yidhi, gacaliso waad iga farxisay. waxaad tahay gabadha adduunka ugu quruxda badan, anigana weligay kaama dheeraanayo. waxaan ku dhaartay inaan weligay inta aan noolahay kaa tegin. qof adiga kaa fiican ma helayo aniga, waana ku jeclaan doonaa inta nolosheeda ka harsan. gabadhii ayaa tiri, waayahay gacaliye, 30 daqiiqo gudahood waan joogaa meesha aan ku ballannay, ee fadlan ii soo dhaqso. taleefankii ayay labadoodaba gooyeen. gabadha aad ayay u faraxsanayd, waayo waxay hubtay in ay murugo badan kadib ugu dambayn la kulmi doonto jaceylkeeda, ayna si kalgacayl leh laabta isku gelin doonaan. gaarigeeda ayay soo kaxaysatay iyadoo farxad weyn dareemaysa. kadib si lama filaan ah waxay bilowday inay ilmayso. sababta ma aysan garanaynin, laakiin indhaheeda waxaa ka soo daadatay ilin fara badan. gaariga si xoog ah ayay u waday, mana aysan ka warqabin in ay xawaarahaas ku socoto, maadaama ay maskaxdeeda ku mashquulsanayd farxadda ay la kulmayso markii ay gaarto goobta ay gacaliyaheeda kula ballansan tahay. iyadoo ay sidaas tahay ayay haddana ku mashquushay inay ilinta ka socota indhaheeda iska tirtirto. isla ilbiriqsigiiba waxaa miyir ugu dambaysay jug culus oo dhacday. waxay soo naaxday iyadoo isbitaalka dhex jiifta. nasiib wanaag, dhaawac culus oo jab ah ma uusan soo gaarin, inkastoo uu jirkeeda dhowr meelood ka dilaacay. gabadhii ayaa tiri, maxaa dhacay? kalkaalisada isbitaalka ee markaas gacanta ku haysay ayaa ugu jawaabtay, gaari aad wadatay ayaa gaari kale ku dhacay. gabadhii ayaa tiri, haye dadkii la socday gaariga kale sooma badbaadin? kalkaalisada ayaa tiri, maya, qofkii gaariga kale waday wuu ku dhintay shilka ka hor intii aan isbitaalka la soo gaarsiinin. gabadhii ayaa tiri, waayahay qof ayaan rabaa inaan waco, fadlan ma wacan karaa qofkaas? kalkaalisadii ayaa ugu jawaabtay, maya, waxaad u baahan tahay in aad nasato ee isdeji fadlan, dhiig badan ayaa kaa baxay. gabadhii ayaa tiri, maya, wax dhib ah ma qabo aniga, idhaaf, qof ayaan la hadlayaa, 1 daqiiqo oo keliya. kalkaalisada ayaa tiri, maya, joog sariirtaada ee naso. intaas kadib haweenaydii kalkaalisada ahayd ayaa bannaanka uga soo baxday qolkii, waxayna bilowday inay oyso, weliba aad ayay u oynaysay. dhakhtarkii weynaa ayaa arkay kalkaalisadii oo oohin meel la fadhisa. dhakhtarkii ayaa ku yidhi, maxaa dhacay oo aad la oynaysaa? kalkaalisadii ayaa tiri, gabadhan wiilkii gacaliyaheeda ahaa ayaa waday gaariga kale ee ku dhacay, wuuna dhintay inta isbitaalka aan u soo wadnay. hadda asagii ayay leedahay waan wacayaa. arrinta dhacday iyadu ma oga, mana aqaano si aan ugu sheego. kalkaalisada waxay ogaatay arrintan oo dhan, waayo waxay goobta tagtay inta uusan wiilka dhimanin, wayna la hadashay. sababtoo ah isagu ma uusan miyir beelin, wuuna gartay in gaariga ku dhacay uu yahay kii ay gacalisadiisa wadatay. wuxuu u sheegay kalkaalisada in beerta ay ku ballansanaayeen uu ka soo gudbay si uu ugu soo iibiyo ubax uu hadiyad uga dhigo saaxiibadiisa uu jecel yahay ee ay isku soo laabteen, kadibna uu uga hormaro beerta. nasiib darro, isaga qudhiisa si xawli ah ayuu gaariga u waday, taxadarna ma uusan muujinaynin. dadka qaar waxay dhahaan, waxa keliya ee dad isjecel kala dhex geli kara ama kala fogeyn kara waa dhimashada. qaarna waxayba dhahaan, wax kala dhex geli kara maba jiraan.
haddaba bal aan isweydiino keebaa khaldan labadooda ma waxaa khaldan wiilka oo markii ugu horreysay gabadha ka tegay iyadoo aan waxba ka galabsanin ma waxaa khaldanayd gabadha oo markii uu cafiska weydiistay jacaylkeeda iyo waxa qalbigeeda ku jiray been ka sheegtay midkee labadooda ku khaldanaa shilka taxadir la'aanta ku yimid ma waxaa khaldan wiilka hadiyadda laga maarmi karay u raadinayay gabadha uu jeclaa ma waxaa khaldan gabadha wiilka ay jeclayd shilka ku dishay mise waxaaba khaldanaa guud ahaan jacaylkooda